shaqaalaha aan ila shaqeynayay horta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay intii aan wada shaqeynanay anoo u ogolaaday inay xilkooda ku shaqeeyaan iyo waxay haayeen way dalacday aad baan ugu faanayaa sababtoo waxaan qoladii ila shaqeynaysay maanta inamadeydii iyo caruurtaydii ila shaqeynayay hadday ii dalaceen anigana waxay tahay nin dalacay un baana waxa weey cabdilcasiis cigar riyaale isna wuxuu noqday agaasimaha waaxda dugsiga farsamada gacanta kamaan taginanu wasaaradda kamaan tagin waaxda kamaan tagin waaxa kale waxa noqon nin odayahoo la talin doona labada waaxoodba kamana xariisni xil baa laga qaaday waxaan ugu mahadnaqayaa Cismaan wasiirka isagoo wasiirkii ugu horeeyay ee ku dhiirada xil inuu qaado xil la magacaaba sidana waxa weeyaan waan ugu tahniyadeynayaa waxaan ugu tahniyadeynayaa wasiirkii ugu horeeyay ee intaan meesha ka shaqeynayay nasiiyay gunno aan ku shaqeyno wasaaradda waxbarashadu haddaanu nahay TVQ-ga isaga agaasimiisa gudba taana mahad baan ugu naqaya waxaan halkan maanta ku wareejinayaa Warda Maxamuud Cali afar shaqaale technical staffs afarta technical staff oo iyadu ugu sareyso mudane wasiir iyo wasiir ku xigeen wixii alaaba iyo qalabaha een hayba gacantan ka saaray wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan leeyahay shaqaalaha iyo cidii aan la shaqeyn jiray ee hore oo ugu horeeyo Axmed Cumar Jimcaale ma aha markii koobaad ee department-kan la magacaabo meeshan laakiin intii aan joogay nasiib wanaag maalintan shaqada ka bilaabay wasaaradda waxbarashada ilaa hadda waxaan ka xasuustaa inaan 8 qaybood ama 8 waaxood aan ka soo shaqeeyay oo marba marka ka dambaysa kolba qayb leey magacaabayay waan uga mahad celinayaa agaasimaha guud iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo mas'uuliyiinta kaleba kalsoonida ay siiyeen ah inay igu maamuusaan inaan noqdo agaasimaha waaxdaas waxaan rajaynayaa inaan ka soo bixi doono xilka ay magacaabeen ama ay igmadeen waxaan rajaynayaa inta aan karaankayga ah oo Ilaahay igu og yahay inaan qaban doono si daacadnimo ay ku jirto waxaan halkan kale xasuusin uga sameeyay dhalinyarta ila midka siiba hablaha ee wasaaradda joogay ama muddo dheer joogay ama muddo gaaban joogay ee rajaynaya inay mar wal xil qabtaan inuu yahay waxyaabaha ugu badan ee xil lagu helo ama ay noqotay qofka inuu samir badan uu muujiyo karti badan uu la yimaado waxaan kaloo halkan iyagana hambaliyo uga dirayaa agaasimayaashii naga soo horeeyay ee xilka ka tagay ee jooga wasaaradda waxbarashada kamid ah ee muddo badan soo hayay in badankoodna aan isnaqaano badankoodna muddo badan ka soo shaqeynay wasaaradda waxbarashada dad aqoon yahana oo wasaaradda in badan wax u soo qabtay waxaan talaahan ku soo jeedinayaa groupkayaga cusub ee soo biiray inaad nagu garab istaagtaan duco iyo dadaal wixii karaankayaga waanu dadaalaynaa insha Allah maanta oo ay taariikhdu tahay 29 bishii 7 2019 waxaa wareejinaya oo amiin aan gacanta ka saaraya xafiis dhisan oo shaqaalihiis u dhow yihiin oo qalabaysan waxaan ku wareejinayaa gaari nooha oo 1396 waxa aan wareejinayaa 365 iskuul waxaan wareejinayaa 83 dugsi sare iyo inta kale dugsi oo saddexa waxaan wareejinayaa macallimiin dhan 3611 oo ay yihiin 3298 lab 313 ay yihiin dadig inta waxay dheer wasaaradda si fiican oo sharaf leh oo ixtiraam leh ayaan ugu soo wada shaqeynay maamuus baa naga dhaxaysay salaam baa naga dhaxaysay kalgacal baa naga dhaxaysay wada shaqeyn baa naga dhaxaysay sida runta xilkii baan wareejinaya laakiin wasaaradda waxbarashadu waa wasaaraddeedii 42 sanaan macallin ahaa walina macallinkii un baanahay amiin waa inankaygi uu ka nasiib badnaa aniga waan la shaqeynayaa waan garab taaganahay markuu ilaa waan istaago waan dhaqaaqi karaa ayaan ka hadhi doonaa kulli xilku
wasaaradda mid baan leeyahay shaqaalaha jooga een anigu ka mid ahay kana mid ahaa qofku dee dembi la-aan maaha wuu gafi karaa waa in tale la siiyo waa in loogu xigsiiyo digniin afa waa in loogu xigsiiyo digniin qoraala waa in loogu xigsiiyo in guddida loo diro ena wanaag celinta haddii la isku soo boodown waa arrin yaraa arrin marka waxaan leeyahay inta iga dambaysay aniga ilaa leeg sidaa kadisada marka loogu soo boodo inay dhintaan baan waxba ku ahayn hala dhowro meerto waxa weeyaan maalinba cid baa hoggaanka qabanaysa oo meel soo gaarsiinaysa madaxdii naga horeysay way ku mahadsan yihiin inay runtii meel ka soo bilaabeen hoose dee maanta meel lagu farxo oo lagu naaloodana ay soo gaarsiiyeen insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka baryayaa in ilaahay subxana wa tacaala noo fududeeyo nagana yeelo kuwa halkaa ka sii hana qaada oo aan hoggaanka maanta loo igmadee loo dhiibay aan hagardaamayn aan mataqaanaaye habsaamin aan la hadhine halkaa intii karaankooda ah ee ay sii dhaafin karaan iyaguna sii dhaafiyaan insha allahu tacaala waxaan ku howlgeli doonaa daacadnimo karti hufnaan shaqo iyo daafurnaan intii aanu kari karno waan insha allahu tacaala xilkaa ku waajihi doonaa mas-uuliyadda lana saaray mas-uuliyadda yar maaha xaqiiqatan waayo ubadkii somalilan mustaqbalkoodii oo dhan baa dusheena saaran nin walba maanta xilka qeyb baa ka soo gaadhaysa runtii waxa weeyaan mustaqbal ummadeed baa dusheena saaran ilaahay noo fududeeyo intaanu kari karno waanu dadaalaynaa intii maaragtaqaanaaye wada shaqey naga dhexaysana waxaanu ka codsanaynaa in hawshaan ugu garab galaan mar labaad iyo mar saddexaadba aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan aad ugu faraxsanahay oo sunnaha dowladnimo nidaamka waafaqsan ah ku-xigeenkaygii un baana ii soo dallacay marka hadday cid kale iyo caynka noqon lahayd baan ma garanaysaa mooyi laakiin mar hadduu ku-xigeenkaygii ii soo dallacan yahay boqolkiiba boqol satisfy baan ku noqday markii warka la ii sheegay run ahaan marka laga hadlana meeshan inaan ka tegi maalin uun maalmaha ka mida waan dareensanaa waan xasuusnaa in dhowbana waxaan ahaa un suulashun baan ku taagnaayo war meesha maad ma garanaysaa ma joogtaayo dardaaranka dadkun baan ku joogoo lalahaa war wax waliba way hagaagiye iska joog waxaan markaa leeyahay cabdirashiid oo ku-xigeenkaygii ahaayoo maanta agaasin halkii aan ka shaqaynaya yimid ilaahay xilkaa kugu astura baan leehay dhammaan agaasimayaasha cusub ee meesha yimidna waxaan ku dardaaraya aan leehay nin weyni waa mustambeede maanta agaasinkaa iyo mas-uuliyaddaa laydiin magacaabay wax walba way idin soo waajihi doonaa caybaa idin soo waajihi dulqaad ogaada oo markaad meeshaas fadhido dulqaad dheeraada ayaa la idinka baahan yahay saxaafaddaa aanu warka siinay dee nin waxay halma seegi waayo way dhacday taana waxaan leeyahay apologize baanu ka bixin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu gaas baan aad iyo aad u bogaadinayaa wuxuu halkan waxaan ku uhi muxuu ahaa raaligelin ka bixiyey raaligelin weyn ka bixiyey runtii hadalkii ay saxaafadda siiyeen isagiiyo agaasimaha muuse maxamed side aad iyo aad buu mahadsan yahay dhaqanka gobta caynkaas geela waxaan ku ninka geel jiraahay markuu waxaan ku hashag waxaan ku muxuu ahaa duqda ee hayska yeelatay ee geela jeex dhashay ee dee fool xumaatay ee duqda marka waxaan ku biyaa lagu soo daayo la waraabinayo si uu u ilowsiyo waxaan ku fool xumadeeda iyo hayskeeda inteeda si uu ilowsiyo ninka geel jiraahay wuxuu yiraahdaa oo uu ugu tilmaamay inay geela jeex dhashay quman quruxdii kaama qubanina awrka qoodhiye qaalmaha sida buu yiraahdaa quman quruxdii kaama qubanina awrka qoodhiyo qaalmaha sida muuse maxamed side iyo cali cabdi gaas odayaashii wasaaradda waxbarashada waxa maanta bedelay caruurtoodii meel fog kamay tegin waa kuwii ay ku soo tabceen waa kuwii ay wax soo bareen iyaguna wasaaradda waxbarashada ayay runtii waxaan ku dhigay wali joogaan oo ay madaxdeedii mas'uuliyiinteedii ka mid yihiin tacab weyn bay xambaarsan yihiin oo waxaan ku waaxaha rag intaas oo hogaaminaya baa ahayn marka qof xil laga qaado maaha micnaheedu waa cadaawad maaha
laakiin cid kale lagu tijaabiyaana kolay sunnaha dowladnimada ka mid tahay inoo sheegay ciddii hanle doonaysa in dalacdana inta badan sifooyinka lagu dalaca waxay ka mid tahay qofku inuu si daacad u shaqeeyo inuu karti la yimaado inuu dulqaad sameeyo mararka qaar waxaa laga yaabaa wixii aad doonaysa inay kaa yaraagaan marka dulqaadkuna runtii waa muhiim si guud shaqaalaha waxaan ugu bogaadinayaa sanad dugsiyeedkii cusbaa waa inoo bilaabmaya waxay gaarka u qusaysay guud ahaan shaqaalaha waxaan doonaynaa inuu dardar fara badan gelino sanadkan si arday fara badan iskuulada loo qoro waxbarashadeena waxbarasho tayo loo noqoto bahda waxbarashada haddeen nahay inagu waxaa inaga mamnuuca markaa siyaasadda manihi inagu xisbi siyaasadeed iyo institution siyaasadeed manihin dhammaanteena horta waa one team inay noqonaa fiican marka institution laga wada shaqeynaya waktiga ugu badaneed shaqada joogta iyo waktigaad gurigaaga joogto waxaa badan waktigaad shaqada joogto marka qofka aad la joogtay wasaaradda aad la joogto ama aad shaqada la joogto inaad u aragta marka qof saaxiibkaaya ama walaalkaaya oo aanad cuqdad iyo xumaan iyo midna u qaadin waxaan rajaynayaa wada shaqeyn wanaagsan odayaashaa la sheegayna kule wasaaraddii ka mid yihiin wax dhibaataa iyo wax mushkiladoo jirtaana ma jirto waxaan noo rajaynayaa shaqo wanaag iyo wasaaraddu ay noqoto markaa wasaarad muraayad iyo model u ah markaa wasaaradaha kale ee institutionada qaranka ilaa 50 kun oo arday cusub aan doonay sanadkan inaan iskuulada qorno marka taasi dadaal fara badan bay nooga baahan tahay waxay nooga baahan tahay markaa dardargelin bay nooga baahan tahay raaligelinta calina waanu qaadanay isaga odaye intii media ka hadlay si wanaagsan baan u qaadanay aad iyo aad baa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa kaliya aan u kacay in kuwa shaqada laga nasiyeyna aan u mahadnaqoon u tahniyadeeyo waxay waddankan ay soo qabteen qarankan hawsha ay u soo qabteen iyo wanaagay ay u soo sameeyeen inaan ugu mahadnaqo kuwa imanayana in aan ku dhiiriyo oo ku soo dhaweeyo xilkaa loo dhiibay ilaahayna ku astiro waxaan leeyahay odayada muuse uu sheegayo waa kuwa loo daba fadhiyo weeyaan waayo aragnimada iyo cilmiga iyo waxsheegidda kuwa loo daba fadhiyo weeyaan yaryarka idinkaa barbaarinaya idinkaa waxu sheegaya macnuhu sida aad sheegteen ma aha in laydinka saaray wasaaraddii baa ka mid tihiin dadka hogaaminaya ka mid tihiin waayo aragnimo iyo xikmad iyo ilaahay haddii kuraya wixii aad soo aragteen ooy kuwa yaryara idinka da-da yar ku hogaamisaan iyaa la doonaya qof la eryay ma jiro halkan muuse imika wuxuu ka sheegay digniin koowaad digniin labaad digniin saddexaad digniin cid dembi kugu haysataa ma jirto digniin waxaa la siiyaa qofka la eryayo ee laleeyahay waxayo waxaasaad samaysay iyaa digniin la siiyaa waa hab dowladeed habka dowladdana haddii inagu aynaan ku dhaqmin oo ah halkii wasaaraddii laga qaadanayey sida dowladnimadu ay tahay sida ay tahay xukunka sharcigu siduu yahay haddii inagu aynaan ku dhaqmin waxaynu ardaydeena iyo ubadkeenna baraynana waa been waayo inagii baan dowladnimadiiba markaa garanayn dowladnimadu waxay ku fadhidaa in qofka marka si kastaba ha loo dhaliila wax yar la dhaliilo in meesha laga dhaqaajiyo qof kale oo laleeyahay waxbuu soo kordhinayaa in la geeyo hadalkayga intaasaan ku koobayaa